Waa mar kale iyo barnaamijkeena Talo Dhakhtar. Maanta waxaanu ka hadli doonaa xikmado ku saabsan saaxiibtinimada. 10 xikmadood oo ku saabsan saaxiibtinimada. Number 1. Saaxiibada aad leedahay 3 nooc ayay u kala baxaan. Kuwo ku caawiya waqtigii aad dhibka ku jirtay, kuwo kaa tagay xilligii dhibaatada ku haysatay, kuwo iyagu dhibta ku gashay ama dhibaato ku gaarsiiyay. qaybta ugu wanaagsan nolosha waa marka qoyskaagu ku fahmaan sidii saaxiib oo kale, saaxiibadana ku taageeraan sidii qoyskaaga oo kale. Saaxiibada beenta ah waa sida harka hooska oo kale, had iyo jeer waa kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto, balse ma arkaysid saacadaha aad mugdiga ama dhibta ku jirto. Inaad daacad ahaato kuma heli kartid saaxiibo badan, balse waxaad ku helaysaa saaxiibo run ah. Marnaba ha ku xulan saaxiib adigoo si dhammaystiran u fahmin. Sidoo kale marnaba ha ku waayin saaxiib isfahan darro ama muran yar. Saaxiib waxa ugu wanaagsan qofka Alle ku xasuusiya, khayr kula jeclaada, marnaba aan dambi ku horseedin ama kugu yeedhin. Iska ilaali saaxiibada xun ama nolosha ka dhacay inaad wax badan ag joogto ama raacdo. Ogow, saaxiibada noocaas ah inay keligood dhintaan ma rabaan. Waxay rabaan inaad isla dhimataan markaad aragto kuwa ka carar. Haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada cidlada, hadda ka cabso inay saaxiib ku noqdaan dad xun. Qof kasta wuu kuu iman karaa goortii aad faraxsan tahay ama guulaysatay, laakiin kuwa dhinacaaga jooga goortii aad niyad-jabsan tahay ama fashilku soo gaadho, kuwaas ayaa ah saaxiibada runta ah. Saaxiibka dhabtiihi wuxuu xaqiiqdii ku yahay hantidaada nolosha. Si daacadnimo ah ayay ku saxaan, ku hagaan, kuna taageeraan. Wehelkoodu wuxuu ku xasuusinayaa inaadan marnaba keli ku ahayn dunida. 10kaasi waxay yihiin 10 xikmadood oo la xiriira saaxiibtinimada wanaagsan. Iyo taxuni waxa ay ku kala duwan yihiin. 1. Saaxiibada aad leedahay 3 nooc ayay u kala baxaan. Kuwo ku caawiya waqtigii aad dhibka ku jirtay, kuwo kaa tagay xilligii dhibaatada ku haysatay, kuwo iyagu dhibta ku gashay ama dhibaato ku gaarsiiyay. qaybta ugu wanaagsan nolosha waa marka qoyskaagu ku fahmaan sidii saaxiib oo kale, saaxiibadana ku taageeraan sidii qoyskaaga oo kale. Saaxiibada beenta ah waa sida harka hooska oo kale, had iyo jeer waa kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto, balse ma arkaysid saacadaha aad mugdiga ama dhibta ku jirto. Inaad daacad ahaato kuma heli kartid saaxiibo badan, balse waxaad ku helaysaa saaxiibo run ah. Marnaba ha ku xulan saaxiib adigoo si dhammaystiran u fahmin. Sidoo kale marnaba ha ku waayin saaxiib isfahan darro ama muran yar. Saaxiib waxa ugu wanaagsan qofka Alle ku xasuusiya, khayr kula jeclaada, marnaba aan dambi ku horseedin ama kugu yeedhin. Iska ilaali saaxiibada xun ama nolosha ka dhacay inaad wax badan ag joogto ama raacdo. Ogow, saaxiibada noocaas ah inay keligood dhintaan ma rabaan. Waxay rabaan inaad isla dhimataan markaad aragto kuwa ka carar. Haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada cidlada, hadda ka cabso inay saaxiib ku noqdaan dad xun. Qof kasta wuu kuu iman karaa goortii aad faraxsan tahay ama guulaysatay, laakiin kuwa dhinacaaga jooga goortii aad niyad-jabsan tahay ama fashilku soo gaadho, kuwaas ayaa ah saaxiibada runta ah. Saaxiibka dhabtiihi wuxuu xaqiiqdii ku yahay hantidaada nolosha. Si daacadnimo ah ayay ku saxaan, ku hagaan, kuna taageeraan. Wehelkoodu wuxuu ku xasuusinayaa inaadan marnaba keli ku ahayn dunida. 10kaasi waxay yihiin 10 xikmadood oo la xiriira saaxiibtinimada wanaagsan. Iyo taxuni waxa ay ku kala duwan yihiin.